daawadayaal qaybtan waa qaybtii saddexaad wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda horfadhi media dunida oo dhan daawadasha qiimaha leh wararkii ugu dambeeyay waa 23 Maarso waa 2020 waa maalmo isniin ah waa mar kale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo daawadasha qiimaha leh isla markaana aan ugu horeysiiyay qaybtan gabadha la yiraahdo Sabrina Dowre oo iyadu ah gabadha markaasi lamaanaha la ah jilaaga la yiraahdo ka tirsan jilayaasha Hollywood ka leeyahay Idris Elba ayaa waxa iyaduna ay ku dhawaaqday in ay ku dhacay xanuunka la yiraahdo markaasi coronavirus. Sabrina oo iyadu horay ninkan ay wada nool yihiin horay xanuunku uu ag helay ama uu helay ayaa waxay sheegtay inay ag joogtay oo ay diiday inay ka ag tagto kadib markii uu xanuunku soo food saaray 2 ama 7 in ka badan ka hor ilaa 10 maalmood ka hor oo horfadhi media aan malaynaad kala socoteen xanuunka Idris marka uu xitaa uu ku dhawaaqayna ay ag fadhiday waxay sheegtay ayadoo la hadlaysay barnaamijka la yiraahdo Oprah Winfrey oo ay ka bilowday barteeda cusub ee ay u bixisay Apple TV Plus waxay sheegtay in ay daneenaysay inay la joogto Idris oo ay doonayso inaysan ka ag tagin waxayna sheegtay in ay ogaatay uun shalay galab in xanuunkaas uu haleelay waxay intaas ku dartay in waxa ay haatan ay dareemaysaa aysan hayn wax badan oo ah sida ay loo maleeyo karaayo ama xanuunku sida daran ee dadka qaarkood ay u maleeyo karayaan aysan dareemaynin waxay sheegtay in go'aanka ay doonaysay in ay ku ag joogto Mr. LP uu ahaa mid ayada ka soo go'ay oo aysan cidna ku khasbin balse dad badan oo baraha bulshada ka hadla ayaa waxay ku eedeeyeen in ay haweenadaasi ay ismidaamisay ayadoo sameey karisay inay lana joogto baa leeyahay isla markaana ay ilaaliso oo qol gaar ah intay dejiso qalabka la iskaga difaacana xirato adeega wixii ahna ay u geyso asaguna ismaamulo masqulaha gurigana mid gaar ah ay markaasi ugu ogolaato dadka ayaa ku tilmaamay inay tan tahay kabadbadis iyo mid aan aqliga saliimka haysan ogolaanayna iyagu dadka qaarkoodna xataa ismidaamin caafimaad ku tilmaamay gaar ahaan kuwa baraha bulshada ka taageera labadan qof ee markaas lamaanaha dalka Jarmalka hogaamiyihiisa Angela Merkel ayaa waxay ku dhawaaqday in ay isxayndaabtay oo ay soo shakisan tahay in xanuunka coronavirus uu soo dhuumo karo kadib markii la sheegay in dhakhtar xanuunkaasi qaba ay xidhiidh la samaysay ama ay kulmeen sida ay sheegtay afayeen u hadashay waaxda maamulka madaxtooyada iyo afayeen gaarka ah ee hogaamiyaha dalkaas Jarmalka haweeneyda Angela Merkel waxa la sheegay in ay haatan qaadatay baleedi talaal ay siiyeen khatiirta dalkeeda kaasoo lagaga talaalay xanuunka ofureenka maaha talaalkanu ka xanuunkan wax talaalo xanuunkan loo hayeelay hadirtu ma jireen macnaha waxa weeye xanuunka ofureenka ee xanuunkaasi keeni karo gaar ahaan dadka waaweyn oo markiiba ku sababi karo ayay talaal ka qaadatay haatan waxay sheegtay in 14 maalmood ay isxayndaabi doonto gurigeedana ay joogi doonto balse ay dalka ka maamuli doonto gurigeeda sidoo kalena waxaa la sheegay in haweeneydana ay ku dhawaaqday in baaritaan labaad ay isku sameyn doonto muddo kooban gudaheed baaritaankii koobaad ayaan ilaa hadeerta soo noqonin oo la kala cadeynayn inay xanuunkaasi haysato iyo in kale dalka Jarmalka ayaa sidoo kale waxa uu yahay dalalka xanuunku sida weyn ugu soo faafayo hase yeeshee waxaa ka horeeya dalal badan oo kamid yahay Talyaaniga Faransiiska Mareykanka iyo dalal kale oo reer Yurub balse waa dalal kamid ah kuwa wadnaha farta kaga haya in xanuunku ku sii faafo Angela Merkel waxay kamid tahay hogaamiyaasha markaasi sida weyn oo la diriraya xanuunka amaaray dalka qadarna 150 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu sheegay inuu sii doono dadka reer qasa ee ayagu xanuunka la sheegay in qofkii ugu horeeyay laga helay iyo sidoo kale in ay markaasi yihiin dad aad iyo aad u dhibataysan oo hawada ka xiran haatan waxay sheegeen in lacagtan ay marinayaan hay'adda xuquuqda dhinaca bini'aadanimada ah ee deegaanka qasa ka shaqeysa sida lagu qoray war qoraal ay soo saartay wakaalada wararka ee dalkaasi Qatar ee QNA waxay sheegtay in lacagtana ay noqon doonto shixnad cadaan ah oo markaasi loo diro dalkaasi Suuriya ayaa isaguna waxa ay ku waramayaan in qofkii ugu horeeyay xanuunka laga helo wasiirka wasaaradda caafimaadka Nisar al-Sachichi ayaa waxa uu u sheegay wakaalada wararka ee dalkaasi Isbaa in xanuunka qofkii ugu horeeyay laga helay uu u muuqdo mid markaasi aan liidan isagoo sheegay in qofkan lala tacaalayo isla markaana meel gaar ah lagu xayiray dalka Mareykanka ayaa gobolada ugu soo badanaya xanuunka waxa kamid ah gobolka Washington gudoomiyaha gobolka Washington ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aan ay dawladda dalka Mareykanku ay heer federaal xaalad degdeg ah uga dhawaaqday gobolka state ka leeyahay Washington governor ka leeyahay Jay Ailey waxa uu barta Twitter ka soo qoray in uu ka mahad celinayo tallaabada madaxweynaha Mareykanka uu qaaday kaasoo ah in gobolka oo dhan laga dhigo mid markaasi xayndaaban xaalad degdeg ah ku sugan dawladda dalka Mareykanka sidoo kale waxay howlgelisay waaxda la tacaalista aafooyinka dalkaasi ee loo yaqaan FEMA waxay sheegtay in ay dirtay 100,000 oo shay iyadoo sheegtay in ay 369,000 oo shay oo nooca neefta
dadka ka caawiya iyo 575,406 shay oo nooca alaabaha markaasi afka lagu jeebto iyo 63,788 oo alaabaha wajiga lagu difaacdo iyo 107,850 alaabaha markaasi loo gashado ama qalabka loo gashado la isku markaasi jooxo marka la gelayo qalitaanada loo diray iyo 240,360 alaabta gacmaha la gashado dhammaan gobolkaasi la gaarsiiyay oo isagu ah gobolka ugu daran ay yiraahdeen halka gobolada kale ee gobolka New Yorkna uu yahay gobolada ayadan xanuunku soo darsanayo gudoomiyaha gobolkaas ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dalka Mareykanka ay soo food saartay marxalad ka daran ayuu yiri xilligii loo yaqaanay markaasi silica daran ee dalkaasi Mareykanka ama Great Depression wixii loo yaqaanay isagoo sheegay in ay tahay tusaalayaal iyo ribaxooyin la dhacayo dalka Italia waxa ay iyaguna sheegeen in xanuunku dadka uu leynayo ay soo badanayaan inkastoo maalintii sabtida ahayd ay dhinteen ku dhawaad 800 qof haddana tan kama yara ayay sheegeen si wararku ay sheegayaan 793 qof ayaa maalintii sabtida ku dhintay dalkaasi haatanna maanta waxa dhimashadu ay maraysaa oo kaliya ayaa leeyahay 651 qof gobolka waqooyiga dalkaasi ayaa waxay u muuqdaa in xanuunku uu u muuqdo mid faraha laga qaada dalka Canada ayaa isaguna sidoo kale cabanaya isagoo sheegay in xanuunku uu muuqdo mid aan wax laga qaban karin Faransiiska ayaa ka digay in xanuunku uu sii bato dawladda dalka Jordan ayaa waaxdeeda dhinaca cuntooyinka iyo dawooyinka ee Jordan Food and Drug Administration FDA oo madaxda guud ayaa wuxuu ku dhawaaqay in la ogolaaday markii ugu horeysay in dawada kaneecada ama malaria habsa taqaanid waa kaneecada af Soomaaliga lagu yiraahdo ay dadka lagu duro iyadoo lagu la darayo dawada kale antivirus kale yiraahdo antiviral kale yiraahdo oo sheegay in ay waxtar u yeelan karto kala tacaalista xanuunku marka uu oforeen isku bedelo ama uu noqon karayo oforeen ama dadka waaweyn ee xanuunkaasi qaba ay kamid tahay hydroxychloroquine dawada la yiraahdo ee loo isticmaalo malaria ama kaneecada dabar jarta ayaa waxa uu sheegay waaxdaasi in loo baahan yahay haatan in lagu daro dawada kale ee viruska lagu la dagaalamo uu kamid yahay kan difaacida wax ka tara gaar ahaan dadka xitaa qaba xanuunada waaweyn ee kamid tahay xanuunka HIV/AIDS waxa ay sheegeen caafimaadka dalkaasi Jordan inay tahay ugu gor leeyihiin inay xanuunka la tacaalaan Dr. Hayil Abayda oo la hadlay TV Al Jazeera ayaa qeexay in khubaro u dhashay dalka Faransiiska iyo dalka Mareykanka labaduba ay qoondeeyeen ama ay saadaaliyeen in dawada kaneecada laga yaabo inay xanuunka wax ka tarto ama ay qofka wax tarto hadii lagu la daro kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dalkaasi Dr. Saad Jabir ayaa ku dhawaaqay in dalka uu soo ridanayo xanuunku uu wali u muuqdo mid markaasi kor u qaadaya asagoo haatan la sheegay dalka in 5,000 oo qof meel lagu xayndaabay halka 112 qofna xanuunku soo ritay dalka Guinea Conakry la yiraahdo ee galbeedka Afrika ku yaala waxa asagana ka taagan muran siyaasadeed madaxweynaha dalkaasi Alpha Conde ayaa waxa uu doonayaa inuu xukunka sii dheereysto iyadoo oo horey loo qeexay awoodda xilli doorasho ee dalkaasi inuu ka badan karin 2 jeer haatan waxa uu doonayaa in uu waxa uu doonayaa inuu dastuurka wax ka bedelo isagoo ku soo dhex dhuuntay isbedel dhinaca dhaqaalaha dalka iyo bulshada uu doonayo inuu ku sameeyo dastuurka ayaa waxa lagu soo daray qodobo dadka qaarkood u riyaaqeen gaar ahaan haweenka oo ay kamid tahay in xuquuq sinaan dhinaca codaynta iyo xuquuqda kale ee asaasiga dumarka iyo ragga la siiyo iyo sidoo kale in la mamnuuco gudniinka fircooniga iyo qodobo kale oo ay kamid tahay dhinaca xil qaybsashada dumarka iyo ragga markay noqoto taasoo dad badan u riyaaqeen balse wuxuu soo hosgeliyay in aan la xadidin xilliga la dooranayo madaxweynaha oo markii hore kaliya ahayd 2 kal madaxweyne Conde oo haatan rugcada in badan dalkaasi soo xukumayay gaar ahaan ilaa 10 sano ilaa sanadkii 2010 ayaa doonaya inuu mar kale noqdo madaxweyne wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horeeyay sida dimuqraadiga dalkaasi loo soo doorto laakiin waxa uu doonayaa leeyahay in maalmihii madooba dalka ku celiyo sida ay sheegayaan dadka eedeynaya ee mucaaradka waxay sheegayaan in dalka qalalaasyo siyaasadeed ka dhici karo ururka awoodda badan ee galbeedka Afrika ka jira ee farageliya hadii ay xaalad darsato isla markaana marar badan ka hortaga talaabooyin ku racan inay qaadaan madaxda qaarkood ee loo yaqaano ECOWAS ayaa waxay sheegeen in halkaasi guddi khubaro u diri doonaan oo ay eegi doonaan bal dalkaasi waxa ka jira horeyna dalka oo 13 milyan oo qof ka kooban ayaa la sheegay inay isku diiwaan galiyeen inay dastuurka wax ka bedelaan 7 milyan iyo 700 oo kun oo qof taasoo la sheegay in laga badbadiyay dhawaana waxa lagu soo celiyay inay yihiin dadka isku diiwaan galiyay qadiyadaasi 2 milyan iyo 500 oo kun oo qof si kastaba ha noqotee madaxa dhinaca mucaaradka oo horey ra'iisul wasaaraha dalkaasi uga ahaa oo la yiraahdo Saylou Diallo ayaa waxa uu sheegay in dalku uu gali karo khatar siyaasadeed iyo qalalaasyo midbadugtaag haddii aan wax laga qabanin talaabooyinka uu qaadayo Mr. Conde ayaa waxa isagu dhankiisa uu sheegaya in waxa kaliya uu doonaya ay tahay in
aan sameyno ayuu yidhi dalka badbaadadiisa iyo in kor loo qaado xuquuqda heerka haween ee dalka ay ka joogaan oo sheegay in maqaam hoose dumarka in lagu celceliyo aysan ahayn mid habboon ama sugan daawadayaashan qiimaha leh tan iyo intaynu sarki doonno barnaamijyo noocan oo kale iyo warar falanqeyno xoogan iyo qaadaadhigis daawasha qiimaha leh iyo warar kale amaana Allah